السلام عليكم maanta waa maalinteeni toddobaad ee challenge-kii oo socda oo galay toddobaadkii koobaad maanta dhameysanaya insha Allah halkan haddaad soo gaadhay waa farxad weeyaan waxa aad soo qaadatay 7 maalimood marka ka maanta lagu daro oo 10 oo faa'iido ah challenge-keeni maxaa la yiraahdaa akhriskana waxaanu dhameynaynaa toddobaadkii koobaad marka 3 meelood marka loo qaybiyo meel baa maanta inaga dhamaanaysa hadii Ilaahay na gaarsiiyo cashirkeenan maanta wuxuu la xiriiraa oo cashirkii shalay toole qoraagu wuxuu bixiyay focus on key result area macnaha inuu qofku awoodda saaro shaqooyinka waaweyn ee natiijada weyn ka dhalanayso wuxuu ku bilaabayaa quote ama xikmad ah hadii awooddaada jir ahaaneed iyo awooddaada maskax ahaaneedba aad isku geyso inaad hal shay uunad qabato maskaxdaadu waxay limilaabaysaa xalinta problemkaas ama mushkiladda aad ka shaqeynaysa qaabkii u xalin lahayd marka qoraagu inta ugu badan cashirkan maanta waxa uu sheegayaa waxa uu leeyahay xikmadda ugu muhiimsan ee cashirkan maanta ku jirtay waxa weeyaan qoraagu sheegayay in ay jirto shaqo adigu kaliya unad qaban karto qofna aan loo diri karin aan dib loo dhigi karin aan maxaa la yiraahdaa aanan laga boodi karin adiga kaliya ku taala marka wuxuu ku leeyahay inta aad ka fikirto waxa shaqooyin ku yaala ta adigu kaliya una qaban karteen cid kale loo diri karin awooddaada oo dhan si 100% focus-kaagana soo jeedi sida shalay toole aan soo sheegnay wuxuu qoraagu sheegayaa in badan uu ku soo celceliyay concept-ka inta ugu badan waxa dhalinyarada caajiska iyo wahsiga ku keenaya waxa weeye in uu qofku ku habsaamayo ama uu waqtiga inta ugu badan ka dilayo isagoo ku mashquulayo shaqooyinka aanan resultiga ama natiijada ka dhalanaysa ay aad u hooseyso marka muhiimadu maaha inaad ku xisaabtanto imise shaqaad qabatay ama imisaad busy tahay dad badan waxa jira busy laakiin aanan result ama natiijo aanan ka dhalinin muhiimada laakiin lagu xisaabtamaya waxa weeyaan shaqadan aad qabanaysay natiijo intee leeg ayaa ka soo bixi doonta hatta hadday doonto hal shaqaba ha ahaato laba shayba ha ahaadaan muhiim maaha inaad wax badan qabatay laakiin waxa loo baahan yahay resultiga ka soo baxay ama natiijada ka soo baxaysay ta ay muhiim ka tahay inaad waqtigaaga aad geliso marka maanta challenge-ka in hor yaala cashirkan waxa weeyaan inaad soo heli karto shaqadaada ta kugu muhiimsan ama kugu muhiimsan inaad soo saari karto kadibna aad 100% aad awood geliso inaad shaqada aad dhameystirto ilaa aad dhameystiraysana wax kale aanad u jeesan marka qoraagu wuxuu leeyahay hadii muddo bila aad sidaa ku socoto oo aad soo hesho kaliya waxa adiga muhiimka ku ah ee resultiga weyn ka dhalanayo hatta bisha dhanba hadda doontid hal shaqaba ha ahaatee muddo bila hadii sida aad u dhaqanto waxa yiri waxa aan ku kalsoonahay inuu noloshaada isbedel aad iyo aad u ballaaran oo weyn oo ku iman doono waxaana ay noqon doontaa mid kamid ah dhaqamada iyo caadooyinka ugu wanaagsan ee intii aad soo noolayd aad yeelatay marka aynu soo tijaabino aynanu ku dadaalno inaynu soo saarno shaqada inoogu ballaaran ee nolosheena in hortaala aynanu ku dadaalo 100% inaynu dhameystirno toddobaadkii koowaad maanta halkaas ku dhan yahay aad baan kuugu hambaleynayaa 7 maalimoodba haddii aad soo wada qaadatay la wadaag muuqaalkan asxaabtaada iyaguna aad la jeclaan lahayd inay wax akhriyaan meel fogna sii gaarsiisay muuqaalku dad badan u gaaro aad iyo aad baa u mahadsantihiin